munaasabadani loo qabtay soo dhaweynta guddiga farsamada dhismaha dawlad goboleedka Soomaaliyeed ee Galmudug ayaa lagu qabtay magaalada Dhuusamareeb ee xarunta maamulka waxaana ka soo qayb galay qaybaha kala duwan ee bulshada waxayna guud ahaantood bogaadiyeen habka ay guddigu ku soo gaareen magaalada Dhuusamareeb iyagoona ka dalbaday in guddigu ay si cadaalad ah ay wax ugu qabtaan bulshada Galmudug lana helo maamul loo dhan yahay Cabdulqaadir Nuur Caraale iyo Cabdinaasir Geel oo ku hadlaya afka guddiga farsamada dhismaha dawlad goboleedka Soomaaliyeed ee Galmudug ayaa qaaday inay si cadaalad ah wax ugu qabanayaan bulshooyinka Galmudug iyagoona ka dalbaday bulshada reer Galmudug inay la shaqeeyaan kuna garab istaagaan si u gudan lahaayeen waajibka ka saaran in la helo maamul Galmudug oo loo dhan yahay in cadaalad aan aad u ilaalino inaan la isku tumanin in cid xildhibaan naqanaysa dadkan u naqanaysa in naqataa qof u qalanta in naqataa oo buuxisa shuruudaha looga baahan yahay inaan gacanta la iska maroojin ee hadii wax la isku fahmi waayo khilaafka la xalliyo halkan waxaan aaminsanahay hadii gacantan xoog wada saarno in maamul ama dawlad goboleed qurxan ka soo bixi karto waan u dhisi karno ayaan aaminsanahay niyo mar rabno inaan anagu maaragtay magaceena iyo sharafteena iyo karaamadeena ku gubno annagoo allana ka fogaanayna dad walaalo ah oo aanan ishurayna ku joorfalayna nagama suurta gasho mana sameynayno inaan saas yeelno waxaan maaragtay diyaar u nahay haddaan nahay guddigaas si ilaahayna la og yahay aqoon darra nama hayso waayo aragnimo xumo nama hayso aqoon la'aan deegaanka nama hayso alle inaan ka fogaanana ma rabno waxaan rabnaa inaan si cadaalad ah oo bulshada reer Galmudug waxa loo sameeyo waa miraayaduna waxay soo saartaa quruxdaada marka waxa loo dhisay Galmudug waxaan ka rabnaa inay noqdaan wax miraayad ah oo markay isku fiiriyaan wax qurux badan مسؤولين kala duwan oo ka soo qayb gashay munaasabada soo dhaweynta loo sameeyay guddiga ayaa sheegay inay aad ugu faraxsan yihiin in guddigu ay yimaadaan caasimadda Galmudug kana hawl bilaabaan soo dhawaada waa dareemi kartiin waqtiga yarka intaan wadadu isugu yimaadeen cidina ma iclaamin dhamaantood niyad wanaaga iyo u hayaan guddiga iyo sidii ugu faraxsan yihiin inay guddiga soo dhaweeyaan ayaa maaragtay hoolkan isugu keentay xubnaha guddiga farsamada maamul dhisida dawlad goboleedka Galmudug ee dhawaan ay magacawday wasaaradda arrimaha gudaha dib u heshiisiinta iyo federaalka ayaa maalintii shalay soo gaaray magaalada Dhuusamareeb Cabdi Jamaal Macalin Axmed Kalsan TV Dhuusamareeb